heerkulka siyaasadeed ee maamulka Puntland ayaa maanta maraya heerkii ugu sareeyay iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan xaaladda iyo duruufaha kala duwan ee maamulka Puntland xilligan uu wajahayo. Puntland waxay federaal ku eedeysay in ay burburinayaan maamulka Puntland oo ah hooyada federaalka iyagoona ku eeday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inayba u soo tafaxayteen sidii guud ahaanba Puntland badda loogu dari lahaa isla markaasina hoy argagixiso looga dhigi lahaa loona kala daadin lahaa nidaamka iyo kala dambeynta maamulkaasi ka jira. waxay Puntland horey ugu eedeysay federaalka in ciidamo calooshood u shaqaystayaal ay ka hirgelisay magaalooyinka muhiimka ee maamulkaasi Puntland kuwaasi oo laga dhex qortay maamulka Puntland hadafkeeda iyo ujeedaduna ay tahay sidii Puntland loo kala daadin lahaa looguna nugleyn lahaa in ay argagixisada hoy u noqoto waa sida ay mar hore ku dooday maamulka Puntland balse xilligan maxaa ka cusub maamulka Puntland xalay siqdi dhexe waxaa warqad wiiftaha soo saaray hogaamiyaha ama madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdulaahi Dani isagoo warar cusub oo lama filaan ku dhawaaqay waxaa Siciid Cabdulaahi Dani uu sheegay isla markaasina guud ahaanba uu ka fogeeyay siyaasadda iyo amniga iyo nidaamka maamulka Puntland ciidamada awoodda badan ee BSF ee fadhigoodu uu yahay magaalada Boosaaso ciidamadan oo dhawaan duleedka magaalada Boosaaso dagaal kula galay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland isla markaasina ay Puntland sheegtay inay ka furatay 6 kamid ah baabuurta dagaalka ay wateen iyo hal ambalaas isla markaasina ay ugu dambeystii isma kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi soo kala dhaxgalan ciidamadii la kala qaaday ayay Puntland waxay sheegtay inay ku sameeyso hubka dhigis ciidamada BSF haddaba ciidamada BSF oo markoodii hore u aasaasay Mareykanka isla markaasina uu gacanta ku hayay intii ka dambeysana marxalado kala duwan soo mariyay loona aasaasay la dagaalanka argagixisada fadhigooda ugu weyn uu yahay magaalada Boosaaso dhowr maamul oo horena ay soo qabteen ayaa xilligan waxay heer sare kala marayaan ama isla markaasina khilaafkoodu uu heerkii ugu sareeyay marayaan Siciid Cabdulaahi Dani Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu maanta banaanka ka dhigay siyaasadda iyo amniga ee maamulka Puntland isagoo sheegay inaysan jirin ciidan la yiraahdo BSF oo ka tirsan maamulka Puntland balse waxa su'aal la dul dhigay ciidamada BSF ee fadhigoodu uu yahay Boosaaso yay hoos tagaan xageyse ka howlgalaan BSF waxay hore u sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada federaalka isla markaasina ay halkaasi u joogaan sugidda amniga guud ee maamulka Puntland taasi ayaa ka dhigaysay in BSF ay toos siyaasadood u hoos imaanayso maamulka Puntland balse dhanka kale waxaa jira isla warqadda ay soo saartay Puntland oo ay ku sheegtay inaysan jirinba ciidan ka tirsan federaalka oo ka howlgala maamulka Puntland taasi oo iyadna su'aal gelinaysa haddii ay Puntland leedahay ciidan federaal kama howlgala maamulka Puntland ciidamada BSF ee ku sugan Boosaaso iyana maxay yihiin maadaama banaanka laga dhigay siyaasadda maamulka Puntland ayna leedahay federaalka ciidan ka tirsan oo Puntland ku sugan ma jiraan ciidankaasi xaggay ka tirsan iyadna waa su'aal kale sidoo kale ciidamada kale ee uu hogaaminayo taliyaha qaybta 54 taliya Jimcaale Takar ee fadhigeedu uu yahay magaalada Garowe iyo sidoo kale Gaalkacyo iyo waliba Qardho halkay ka tirsan yihiin waa su'aal u baahan in dhamaantoodba ay ka jawaabto maamulka Puntland iyo federaalka ayaa la soo warinaya inay isku eryanayeen magaalooyinka muhiimka ee maamulka Puntland iyadoona Siciid Cabdulaahi Dani uu ku eedeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda in ayba ka shaqeynayaan sidii Puntland loo dumin lahaa isla markaasina guud ahaanba badda loogu dari lahaa dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna dhawaan hadlay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay sheegeen in Siciid Cabdulaahi Dani Puntland uu ka jaray federaalka intiisa kale waa eedeymo xooggan oo isoo tariya ugu dambeystii Puntland waxay xalay saq dhexe ay digniin u dirtay maamulka dariskeeda ee Galmudug iyadoona sheegtay in Galmudug ay hoy u noqonayso sidii loo dumin lahaa maamulka Puntland oo ciidamo diyaarada lagu keenayo laga soo dejinayay garoomada maamulka Puntland iyo sidoo kale ciidamo infantry laga soo gelinayay magaalada Gaalkacyo iyadoona ugu baaqday in Puntland ama ugu baaqday Galmudug inay ilaaliso darisnimada iyo saaxiibtinimada Puntland ay la leedahay